dowladdan cusub ee dardarta wadata warankii yaan badan ka tumanay Soomaan way dadaashay xaqiiqdii wax badan ayay ka qabatay deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaana maantaas kale Ilaahay ka sokay madaxweynaha wasiiradiisa xildhibaanada labada aqal ee federaalka ee ka soo jeeda deegaankan galmudug iyo bulshada galmudug waxaa la dhihi jiray laba arrimood ayaan ka hayaa cadaado oo ah cadaado cidi kaama xigto boorka ay ku qoran tahay laakiin waxaa la ii sheegay hoosteeda inay ku qoran tahay run hamoodin maanta waa raadiyey waa waay waa xaqiijiyey inaysan cidi iga xigin tii kale oo aan xaqiijiyey oo muddo 100 sano ka hor la dhihi jiray qosolka ma sha Allah marka waxaan rabaa inaan hoos idin kugu dhigo gudoomiyaha aad ayuu u mahadsan yahay oo muddo badan aan kala soo shaqeynay halkan Cabdullaahi Totole wuxuu rabaa inuu ruuxo wax iga soo daataan Soomaan laakiin maadaama cadaada aan ka tirsanahay horena aan ugu soo shaqeeyay waxay ogtahay rabtana aan ogahay siiba wadadan laamiga ah iyo waxyaabo kale insha Allah ayaan u sameeynaa waana ballan taas ay ga ballana insha Allah marka waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mar labaad waxaan idin leeyahay casho macaan waa isiisaan cashada wax ka qiimo badan ayaa jiro oo ah soo dhaweynta iyo qalbi furnaanta aad ayaan ugu faraxsanahay sida ay ugu qalbi furan tihiin insha Allah mustaqbalkana inaan hore u sii qaadno ayaan rajeynayaa farxadaas iyo wanaagaas aan noo haysan dhamaanteen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh